wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo bandhigay fal ay ku kacday dawladda federaalka. haddaba maxaa ka jira in dad ka qayb galay dibadbaxyadii dhacay lagala baxay guryahooda Muqdisho? Turkiga oo si ka duwan sidii hore uga hadlay xaaladda Muqdisho. safiirkii hore ee Turkiga u jooga Muqdisho oo soo bandhigay fariin ceeb ku ah dawladda madaxweyne Farmaajo. murashax Daahir Geelle oo digniin adag u diray madaxweyne Farmaajo. haddaba madaxweyne Farmaajo ma dhageysan doonaa fariimaha uga imaanaya mucaaradka? dawladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay sababta keentay in la xiro wadooyinka Muqdisho iyadoo fariin u dirtay shacabka. wararkeena kalena waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay askartii ka qayb qaadatay dagaalkii ka dhashay dibadbaxyadii Muqdisho. haddaba maxay tahay tallaabada ay dawladda federaalka ka qaadayso askartaasi? iyo ra'iisul wasaare Rooble oo maanta si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyo kulamo uu durbaba halkaasi ka bilaabay. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana habeen khamiis ah 17 bisha 12 ee December sanadka 2020. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaane. fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aan ku bilowno wararkeenna. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada amniga oo amar ka haysta madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ay ku dhaqaaqeen in xilli saqdhaxa ay guryahooda ugu dhacaan dad lagu bartilmaameedsanayo inay ka qayb galeen banaanbixii daraad ka dhacay Muqdisho ee looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xalay 9 saac habeenimo ciidamada ayaa albaabada u garaacayay dad ay rabeen inay guryaha kala baxaan oo xirxirnaa. waa wixii aan dhayeynay oo aan daaweynay xalinay, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay shalay maalin kadib dibadbaxyadii Muqdisho. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in inta badan dadkaas laga soo waayay guryahooda balse ay jiraan qaar la xiray, laakiin way ka waayeen ee way soo xiri lahaayeen. haddana qaar baa xirxiran oo ah ganacsato aan joogin meeshii lagu mudaharaadayay, kuwaas oo loo xirxiray maskaxda ayay kala jireen. waa taageersanaayeen ayay leeyihiin. war maxaan hore ugu soo noognay? waa wixii dalkan uu ka yimid, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digay inaan dib loogu celin dalka wixii uu ka yimid, isla marhaantaana xaaladda sidaasi wax laga bedelo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin adag u diray ciidamada dawladda ee loo adeegsanayo ka hortagga banaanbaxyada shacabka fikradooda ku soo bandhigaya si nabadeed, isaga oo tilmaamay in ciidamada ay yihiin kuwa ilaalinaya amniga shacabka ee ay u dhaarteen. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dawladda in la sii daayo dadka xirxiran ee dawladda xabsiyada u dhigtay banaanbaxyadii dhacay awgeed. dawladda ha ka timaado dadka ay xoogga iyo qasabka ay ku hayso. dalkan laguma hayn karo xoog. dadkii shalay jidadka taagnaa waa kuwii shalay soo dhoweynta madaxweyne Farmaajo jidadka u taagnaa. afkooda ayayna ka sheegeen in shalay kuwii Farmaajo soo dhoweynayay ay ahaayeen. waxaan leeyahay madaxweynow, dadku waa dadkaada. shalayna kuma necbeen kumana jeclayn, maantana kuma necbana. madaxweynahoodii ayaad weli tahay. 54 maalmood ayaa kuu hartay. adiga ha ka cararin, sida qaanuunka iyo xeerka qabo ku maarey, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale tilmaamay in aysan garan karin sabab uu u kala qaybinayo dawlad goboleedyada dalka oo qolo gooni ah uu u soo jeedinayo, qolo kalena u fogeynayo, isagoo taasi uga digay, isaga oo tilmaamay in haddii caqliga uusan shaqeynin in wadada uu ku socdo madaxweyne Farmaajo meel xun ay markaasi geyn doonto. ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan ayaa ciidamada qalabka sida ugu baaqay in aan loo adeegsan wax aan sharciga waafaqsanayn, haddii kale ay soo laba kaclaynayso boogtii hore loo dhayay. qaybihii hore ee wararka ayaa daawanaysan. safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha waqtiga uu ka sii dhamaanayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu la yimaado qaangaarnimo siyaasadeed. safiirka oo faalle ka bixiyay xaaladda maanta ka taagan Muqdisho ee dawladda Farmaajo ee kala xirtay wadooyinkii, ciidamo badanna dul dhigtay xarumaha murashaxiinta xilka madaxweynaha ee doorashada 2021, ayuu qoraalkiisa kula taliyay madaxweyne Farmaajo inuu raaco dariiqii madaxweynayaashii hore. waxaan rajaynayaa in madaxweyne Maxamed Farmaajo uu muujin doono qaangaarnimo siyaasadeed oo la mid ah
sidii ay sameeyeen madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif sanadihii doorashada ee dalka ka dhacday 2012 iyo 2016. Soomaaliya waxay u baahan tahay heshiis ee uma baahna iska hor imaad, ayuu fariintiisa ku yiri safiirkii hore ee Turkiga. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay dowladda uu hogaamiye Farmaajo ay saaka ciidamo ku daadisay wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda, taasoo dadweynaha ku qasabtay inay saacado badan u lugeeyaan goobaha ay rabeen maadaama laga celinayo gawaarida wadooyinkaas. Sidoo kale waxa uu ku soo aadaya xilli mucaaradka walaac badan ka qabaan tallaabooyinkii u dambeeyay ee uu qaaday madaxweyne Farmaajo iyo hanaanka ay dowladdu u wado doorashooyinka, midaasi oo keentay in dalka uu yeesho 2 guddiyo doorasho oo ay soo kala magacaabeen xukuumadda iyo mucaaradka. Dowladda Turkiga ayaa dhowaan ee qayb ka ahayd bayaan ay si wada jira u soo saareen dalalka beesha caalamka, kaasi oo iga soo horjeesteen guddiyada doorashooyinka ee lagu muransan yahay, inkasta oo uu safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz uu taageero u ballan qaaday amaba uu taageero u muujiyay guddigaasi. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa xaqiijiyay in la xiray qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho, taas uu sheegay in lagu sugayo ammaanka. Isaga oo ka hadlayay warbaahinta dowladda ayuu saxaafadda ugu baaqay inay iska ilaaliyaan waxa ay qorayaan, kana eegaan in ay dan u yihiin dadka iyo dalkaba. Annagu ma dhahayno hal la xiro ama hal la joojiyo, laakiin bulshada ayaa kala sooci doonta waxa la faafinayo, waana in waxa la qorayo ay ahaadaan wax dan u ah dadka, ayuu yiri wasiirka amniga Xundubey. Waxa uu sheegay inay soo gaareen dhibaatooyinka ka dhashay wadooyinka xiran iyo saameynta ay yeesheen, laakiin ujeedada aysan ahayn in dadka la dhibaateeyo. Wuxuuna ka tacsiyeeyay dadkii waxyeeladu soo gaartay howlaha lagu sugayo amniga dartiis, isagoo oo ciidamada faray inay shacabka u turaan. Wasiirka ayaanan soo hadal qaadin sababta loo xiray wadooyinka, digniin ka timid murashaxiinta madaxweynaha ee ciidamada la duldhigay, iyo weliba xaaladda ka taagan maanta magaalada Muqdisho. waa tahay markaana wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo haatan murashax madaxweyne oo ka mid ah midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa si adag uga hadlay ciidamo ay dowladdu ku daadisay aagga mucaaradka iyo jidadka magaalada Muqdisho. Murashax Daahir Geelle ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay in dowladdiisu ay caburisay shacabka iyada oo beegsi gaar ahna ku haysa siyaasiyiinta mucaaradka. Waxa uu xusay in ujeedka ka dambeeya in dowladda Farmaajo ay wadooyinka xirtay tahay sidii dalka ay uga abuuri lahayd qalalaaso siyaasadeed iyo deganaansho la'aan, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu markaasi madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in xaaladda haatan uu wax ku wado uu wax ka bedelo. Ugu dambeyntii waxa uu markaasi taliyaasha ciidanka ugu baaqay in aysan u hoggaansamin amar kasta oo ka dhana xuquuqda shacabka, isagoo carabka ku adkeeyay in xuquuqda muwaadiniinta oo lagu xadgudbayo ay ka mudan tahay in ay ilaaliyaan ciidamada la adeegsanayo, sida uu hadalka u dhigay. Daahir Maxamuud Geelle wuxuu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed oo uu tilmaamay inay u soo sabreen dhibaatooyin kala duwan iyo in la helo dowladnimo. Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka xirtay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyada oo lagu soo daadiyay isgoosyada muhiimka ah ee ku yaala caasimadda askar ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka bilaabay halkaasi dhaqdhaqaaqyo cusub. waa hagaag haatanna aan fiirino howlgal qorshaysan oo ciidamada amniga sameeyeen ayaa la sheegayaa in qaarkood lagu soo qabtay askar ka tirsan xoogga dalka oo qayb ka ahaa dagaalkii maalin ka hor ka dhacay isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho. Howlgalka ayaa laga sameeyay saacado ka hor xaafado ay ka mid yihiin waqooyiga Muqdisho oo ay ku sugnaayeen askartaasi. Qaybta dabagalka iyo lambarada xoogga dalka ee liiska wasaaradda gaashaandhigga ay mushaarka ku qaataan ayaa lagu ogaaday muuqaal ay ka soo muuqdeen askartaasi, sidaasina lagu soo qabtay. 4 askari ayaa hadda xiran, kuwaas oo ka amar qaadanaya taliye lagu magacaabo Sanay Cabdulle Gaab una diiwaan gashan yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu raad joogaa 3 askari oo iyaguna qayb ka ahaa arbushaadii Fagax ka dhacday Talaadadii isbuucan, kuwaas oo meel ay jaan iyo cirib dhigeen aan haatan loogeyn. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigu yahay midka dadka dhan ay u wada siman yihiin, isla marhaantan uusan jirin qof sharciga ka weyn, sidoo kalena la soo qaban doono cid kasta oo sharciga ku xadgudubta. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay wafdiga ra'iisul wasaare Rooble.
wafdiga ra'iisul wasaaraha dalka ayaa inta ay joogaan magaalada Cadaado waxay u kuurgalayaan xaaladda nololeed iyo baahiyaha ay qabaan shacabka ku nool Cadaado ee dhinacyada kaabayaasha bulshada, taasoo qayb ka ah barnaamijka xukuumadda ee horumarinta adeegyada bulshada. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in shacabka Cadaado ay yihiin dad jecel dowladnimada, isagoo ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay safarka uu ku joogo Galmudug ee lagu kuurgalayo baahiyaha ka jira deegaankaasi. ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shacabkii soo dhaweeyay u mahad celiyay, wuxuuna sheegay in inta uu joogo inuu kulamo lagu xoojinayo nabadda iyo horumarka la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. ra'iisul wasaaraha dalka Rooble ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay safarro shaqo waxa uu ku joogay deegaanada Puntland iyo Galmudug oo uu haatan ku sugan yahay, isagoo halkaasina ka wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo uu ku horumarinayo xukuumaddiisa. qodobkaas ayaa u dambeeyay wararkeenna tan iyo warkan war la mid ah. inta aynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo.